soo dhawaada saaxiibada SMTT waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenana maanta waxaan ku eegi doonaa qaabka amaba sida aad sawiradaada uga dhigi lahayd PNG. Si la mid ahna muuqaalkan waa laba muuqaal oo la isku daray. Waxaan kaloo arki doonaa qaabka aad muuqaalada amaba video isagana aad ugu remove garan lahayd background. sawir sida looga remove gareeyo background iyo sidoo kale muuqaal sida background looga remove gareeyo ayaan wada arki doonaa. waan ogahay marba haddii aad doonayso inaad sawirkaaga backgroundkii originalka ah ka remove gareyso kana dhigto PNG amaba transparency hawl aad u dheer ayaad gelaysaa. haddii aad mobile isticmaasho waan ogahay PixArt ayaad aadaa amaba sidoo kale waxaad aadaa Pixel Lab ama background eraser. saddexdaas uun mid kamid ayaad isticmaashaa haddii aad mobile leedahay. haddii aad computer leedahay isla markiiba waxaa u ordaysaa amaba aad aadaysaa Photoshop 2020 haddii aad isticmaashana waan ognahay adeeg casri ah ay ku soo dareen kaasoo inaad backgroundka ugu remove gareyn karto adigoo waqti badan uusan ka bixinba. kaliya isla markiiba waxaad haysataa sawirkaagii oo background la'aan ah. balse waan ognahay mobilka Photoshop 2020 kuma isticmaali karno. sax waxaad u baahantahay marka adigana inaad waqtigaagii dhaqaaleysato sida dadka Photoshop isticmaalo oo kale ayaad adigana doonaysaa. halka aniga maanta ku haya qaab aad u sahlan aad u fudud easy ah ayaan muuqaalkan ku arki doonaa. saan kuu soo sheegayna muuqaalkeenan waa laba muuqaal. marka hore waxaan arki doonaa qaabka aad video meeshii aad dooda ka keen background nuucoo doona ha lahaado green screen ha ahaado qaabka aad background ku remove gareyn karto kadibna aad uga dhigi karto PNG video PNG ah. soo saas lama dhigi karo. waxaad samaynaysaa marka inaad soo furto browserkaaga ama waxaad samaynaysaa website-ka description-ka videogan ku yaala ayaad soo booqanaysaa. website-ka waa kan waxaa la yiraahdaa unscreen.com. description video aad ka booqataa marka isla markiiba waxaad arkaysaa video inuu halkan ugu tusaayo oo soo dhaweyn ah videogaagii ayaad waxaad ka dhigaysaa PNG. runtii waa website aan inaba caadi ahayn. wuxuu ku leeyahay goodbye green screen. marka isticmaalka website-kan runtii aad buu u fudud yahay. uma baahnid inaad waqti badan iska geliso inkastoo waxyaabaha uu ku xun yahay sidoo kale aan dhamaadka muuqaalkan aan ku arki doono. markaad website-ka sidatan u soo booqato adigoo interface-ka ama wajiga hore jooga halkan upload a clip ay qoran tahay ayaad kaliya ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato hoos ayuu wuxuu kaaga soo saari doonaa marka use an action camera ma doonaysaa mise files. haatan files ayaan doonayaa. markaan files ku soo dul dhufto wuxuu ku keenayaa marka videoskii ku jiray mobilkaaga. haddii uusan muuqaaladii dhan uusan ku soo saarin saddexdan ulood ee dul saaran ayaad tagaysaa. kadib waxaad leedahay marka gallery ayaad ka dooranaysaa si aad u aragto marka waxyaabihii ku jiray mobilkaaga oo dhan. marka halkan waxaad ka raadinaysaa marka muuqaalkii aad rabtay in lagaaga dhigo PNG ama video aan wax background lahayn. tusaale videogan aan kala soo degay Mixkit ayaan ku dul dhufanayaa. isla markiiba wuxuu sameeyaa marka preparing upload ayuu sameeyaa oo daqiiqada kooban kaama baahan xataa 20 daqiiqo 30 daqiiqo 40 daqiiqo sugi meesidba aad u sahlan tahay. isla markiiba waxaad arkaysaaba inuu videogii backgroundkii originalka ahaa uu ka saaray kana dhigay video wax background lahayn. runtii waa website cajiib ah waxaaba ku xunahayna waan arki doonaa iyadana. markii hawshii dhamay marka waad sugaysaa inta uu hawsha ka dhameeyo waad arkaysaa marka hawshii wuu dhameeyay videogii marka waxaad arkaysaa qofkii inuu soconayo isagoo markaas originalkiisii uusan ahayn. sidoo kale originalka hadii aan ku soo celino halkan original qoranta ayaan ku dhufanayaa. originalka sida tan ayuu ahaa qof meel duur ah socdo buu ahaa. markii videogii transparency ama backgroundkii laga saarayna sida tan ayuu noqday. halkan transparency waxaad arkaysaa marka videogii inuu no transparent yahay. sida mid optionadan ku xiga video color image haddaad video ku dhifato wuxuu ku siinayaa videoyo ku diyaarsan ayuu ku siinayaa. tusaalahan kan haddii aan ku dhifto waa kaas waxaad arkaysaa animation yar qurux badan ayuu videoga dhex gelinayaa. sidoo kale waxyaabo kaloo badan ayuu ku siinayaa. halkan aad gacantaada ku jiidaysaa markaas midkii aad ka hesho ama aad ku qanacdo ayaad markaas dooranaysaa. sidoo kale videogan haatan transparency oo la dhigay haddii aad doonayso inaad sawirkaaga aad soo dhigto kale select file halka qoranta aad ku dhufanaysaa. kadib image ayaad leedahay. waxaad dooranaysaa marka videogii transparency lagaga dhigay waxyaabay backgroundkiisa ka soo muuqan lahaa. tusaale ahaan khayr ayaan doortaa. haatan waxaad arkaysaa marka qofkii wuu soconayaa wuxuu ku dul soconayaa marka khayr dushiisa. adiga ayaa markaas hagaajisan kara. sidoo kale color ay qoranta color tira badan ayaa ku yaala oo markaas videogaagii gadaashiisa ka soo muujin karto. sidoo kale image aad ku dul dhufato image ku diyaarsan ayaa meesha ku jira adigoo markaas videogii transparency lagaga dhigay wax ku habboon markaas ku dul aadinaya. tusaale qofkan wuxuu ku habboon yahay maadaama uu yahay qof soconaya meel wada ah waad arkaysaa marka wadadan inuu ku soo baxayo. marka waxaad doonaysaa haatan marka muuqaalkaaga waad ku diyaarsatay inaad dibad u la degto ama aad export ku samaysato si aad u isticmaasho. waxaad samaynaysaa hoos soo deg. waa muhiim inaad daaqso marka waxyaabahan meesha ku yaala. hoos hadii aan u sii degno website-kan wuxuu leeyahay laba qayb qayb free ah iyo qayb lacag laga bixiyo. tusaale qaybta aad lacagta kala bixayso ayaa aad u fiican
sababtu waxay noqonaysaa yani wax watermark ma lahan sidoo kale muuqaalkaagii oo dhammaystiran yani muuqaalkaaga hadduu 10 daqiiqo ahaa 10kaagii daqiiqo oo iyadoo wax background lahaynin ayuu ku siinayaa sidoo kale iyadoo full HD ayuu ku siinayaa qaybtan free clipskana waad arkaysaa marka free clips hadaan kusoo noqono markaad qaybta free isticmaalayso yani 5 second kaliya ayaa lagu ogol yahay waa 5 second kaliya markaad qaybta lacagta isticmaashana videogaagi oo dhammaystiran ayaad helaysaa waxaad sameynaysaa markii aad ku qanacdo marka resultigii waxaabi uu ku soo saaray ama wax sidii aad u sameysatay halkan download ay qoran tahay aad ku dhufanaysaa isla markii wuxuu bilaabayaa marka inuu soo download gareeyo kuna galo galleryga mobilkaaga tan kale uu website-kan ku xun yahay aan kugu sii daray waxay tahay videogan haatan uu exportiga noogu wado yani qaab gif ahaana ayuu export ku sameynaya yani mp4 kaaga ma dhigayo laakiin taas halkeeda aad buu u fudaa marka download aad si leedahay mar kale sababta waxaad sameynaysaa inaad applicationada yani gif to video laga dhigo ayaad isticmaalaysaa tusaale ahaan mid ba haatan ugu jira marka hore aan wada aragno wixii aan soo sameynay gallery ayaan soo furnaya kadib wixii aan sameynay waa kan marka waad arkaysaa inuu gif yahay wixii waa sawir oo kale yani waa sawir inkastoo video uu background nooga saaray waxaad sameynaysaa marka si aad muuqaalkaagii uu gifka kaaga soo dhigay uga dhigto mp4 play store ka aad soo furnaysaa oo barnaamijyo tiro badan ayaa jiro oo muuqaalka gifka ah yani mp4 ka dhiga marka halka searching ku qor gif to video kaliya ayaad qoraysaa markaad ku qorto isla markiiba kuwa badan ayaa ku soo bixi doona marka kan ugu sareeyay aan ku dul luftay aniga haatan mid kan aan isticmaala marka gif to video ayaa la yiraahdaa marka waad la soo degaysaa hadii aad doonto open ayaan si leeyahay isla markiiba waxyaabihii localka ahaa ee ku jiray mobilkaaga ee gifka ahaa uu aqoonsanaya isla markiiba barnaamijkan kaliya marka muuqaalkii aad ku dul lufanaysaa kadib waxaad leedahay marka convert ayaad leedahay wuxuu sameynayaa marka inuu video inooga dhigo haysiinayo wata marka waxaan iska xiraysaa haatan waxaad haystaa marka isagoo video ah haddii aan halkan ka soo baxo aan kadib gallery ku soo laabto waad arkaysaa marka waa mp4 wakaas video han ayaan u daawan karaa marka website-ka koowaad marka sida taas ayaad ugu faa'iideysan kartaa oo video walba ee ku jira YouTube-ka ha ahaado green screen ama yuusan ahaanin background-kiisa ayaad sida taas uga saari kartaa tan aad ku xisaab badan eed haatan isweydiinayso waxay noqonaysaa marka sidee baan anigana sawirkayga yani sawir aan aniga leeyahay background-ka uga saari karaa si aan meeshii aan doono u dulgeeyo iyadana aad bay u sahlan tahay aad bay u fududahay waxaad sameynaysaa inaad la soo degto barnaamij la yiraahdo remove.bg waxaad isagana ka helaysaa Play Store-ka description video-gan ayaan isagana ku soo dhigi doonaa amaba marka qaar dadku way ku wareeraan description-ka wax ma yaalaan ay ugu yiraahdaan marka waxaad sameynaysaa Play Store-kaaga soo furo markaad Play Store soo furato halkaan aad waxaad qoraysaa marka remove.bg aad qoraysaa kaliya markaad qorto search aad leedahay waa kana marka barnaamijka remove.bg isagana halkaan aad ka helaysaa markaad barnaamijkii la soo degto kuna shabato mobilkaaga waxaad leedahay marka open ayaad leedahay barnaamijkan isagana wuxuu u shaqeynayaa sidii unscreen.com yani labadoodu waxaan filayaa qiyaasayaa inay hal shirkad isku leedahay markaad barnaamijkii sida tan u soo gasho waxaad leedahay marka uma baahnid inaad qoraaladan akhriso halkaan upload image ay qoran tahay aad ku dhufanaysaa kadib hoos ay wuxuu kaa soo saari doonaa marka choose image from camera PixArt yani waxaas marka gallery aan doonayaa kadib sawiradii ku jiray galleryga mobilkaaga oo dhan ayuu ku soo tixi doonaa marka sawirkii aad rabto markaas inaad background ka saarto kana dhigto PNG ama waxaan loo yaqaan transparent aad dooranaysaa tusaale haatan waxaan dooran doonaa marka sawirkan arrimaheena ayaan dooran doonaa waad arkaysaa sawirkan inuu haatan background leeyahay waan ku dhufanayaa kaliya isla markiiba wuxuu bilaabi doonaa marka inuu sawirkii backgroundkii originalka ka saaro kaagana dhiga marka transparent ama PNG waqti badan ba ka qaadanayso isla markii waxaad arkaysaa marka sawirkii inuu ka saaray backgroundkii originalka ahaa kaagana dhigay PNG waxaadna kaloo arkaysaa sawirkii inuu si nadiif ah qurux badan uga saaray backgroundkii waliba aan ku naqsho lahaynin sidoo kale barnaamijkan isagana wuxuu ku siinayaa inaad yani dhexdiisa ku sii edit gareey karto sawirkii tusaale ahaan halkan sare edit qoort haddii aan ku dhufto sidii inaad sawirkaagii originalka yani haddii aad doonayso inaad blur ku darto waad ku diri kartaa yani waxyaabo tiro badan ayuu ku siinayaa oo aad markaas u isticmaali karto isla barnaamijkan gudihiisa oo wuxuu ku siinayaa marka backgrounds yani qurux badan oo marka aad sawirkaagii backgroundkii ka saartay yani gadaashiisa ka soo muujin karto halkan hoose ayuu ku buuxan iyagoo tiro badan midkaad ku qanacdo markaas waad isticmaali kartaa sidoo kale haddii backgroundkii uu si fiican uga saarin waxaad kale awood u leedahay inaad yani gacantaada uga la sii saarto halkan erase qoranta hadaan ku dhifto waxaan awood leeyahay inaan sameeyo inaan yani uga tirtiro markaas meelihii oo markaas isiga si qalad uga tagay sidoo kale halkan sare undo redo ayuu ku siinayaa oo waa sidii Photoshop oo kale marka haatan waxaad doonaysaa inaad sawirkaagii la soo degto soo maaha waxaad sameynaysaa marka halkan download qoran tahay aad download leedahay isla markiiba wuxuu sameynayaa marka inuu galleryga mobilkaaga kugu shubo waad arkaysaa sawirkii waa kan sawirkii aan haatan soo sameynay waad arkaysaa marka inuu aad u nadiif yahay uu yani lahayninba background haatan sawirkan waxaad awood u leedahay marka inaad geyso meel walba yani meeshii aad doonto aad markaas geyn kartaa adigoo markaas sawirkaagii ka dhigi kara sawir aad u qurux badan meeshii aad doontan aad kasoo dul muujin karto marka waa qaabkan saaxiib qaabka aad sawirada iyo video uga saari karto background meeshii aad doontana markaas aad u dul geyn karto
waxaad isticmaali kartaa labadan barnaamij aan maanta kuu soo sheegay oo runtii haddii aad YouTube leedahay yani wax badan kaa caawin kara weliba website-kan remove.bg la yiraahdo anigaan idin hadlaayo daily life-kayga ayuu ka mid yahay yani maalin walba waan isticmaalaa u mahadcelinayaa marka qoladii soo sameysay barnaamijkaas yani haddii aan mobileynahay inoo fududeeyay qaabka aan background kugu saari karno mobilkeena marka uma baahnid maanta kadib inaad PixArt Pixel Lab ama background eraser isticmaasho marka sida taas ayaan waxaabihii aan maanta soo sameynay uga faa'iideysan kartaa labadii barnaamij yaan hadalka kugu sii dheereen waxaan jeclaa markiina halkaas kusoo gabagabeeyay videoga filaya rajeynaya inaad wax bartood haba yaraadaan aad ka fahamtay waxaan kaa mahadcelinayaa waqtigaagii aad ku bixiso daawashada muuqaalkan waaniga Cusmaan oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu